بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaan filayaa habeenadan baa in culamo waaweyn idinla joogtay waddanka dakatiradiisii ama aqoon-yahankiisii anagu dee caamadaanu kusii samaynay nimankaa culamada ah intay idinka imanayaan mar hadday yimaadeen oo duruusta akrinayeen cilmi idinkama maqnaan u malayn darsigaygu caawa wuxuu iskaga saabsiisan yahay inaan bal tambiihiyo ama baraarujiyo ninka ganacsada ee muslimka ah maadaama magaaladiinu ay magaalo ganacsi tahay dadkuna camalka ugu badan ama shaqada ugu badana haya ay ganacsi tahay waxyaabaa looga baahan yahay wax ka mid ah ama taxadiyaadka ee hortaagan ugu horeyn waxaynu ognahay ilaahay subxaanaه wa tacaala ganacsiga inuu baneeyey waaxala allahu اlbayca waxarama الriba ilaahay subxaanaه wa tacaala binasi kitaabihi buu inoogu tilmaamayaa baycu ama waxgadista iyo wax soo gadashadu ganacsigu inuu xalaal yahay aayaad badan oo qur-aan oona laga dheegan karaa mas'aladaasi oo alle subxaanaه wa tacaala uu kaga waramayo bale layna yidhi cibaadadiina markaad dhammaysataan faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun aayaadka qur-aan ku soo arooray ama axaadiista ku soo aroortay ganacsiga iyo waxtarkiisa iyo ajarkiisa iyo fawaa'idiisu waa iska tiro badan yihin waxaa kugu filan imaamu طabri raxmat ullaahi calayhi markuu tafsiirayo aayaadkan ugu dambeeya ee suuraة اlmuzammil ilahi wuxuu leey ina rabaka yaclamu anaka taquumu adnaa min ثuluثay اleyli wanisfa وثuluثahu وطaaئfaة min aladiina macaka wallahu yuqadiru اleyla wالnahaar calima an lan tuxsuuhu fataaba calaykum faqra'uu ma tayasara min alqur'an calima an sayakunu minkum marضى وآakharuuna yadribuuna fi اlardi yabtaguuna min fadli اllah وآakharuuna yuqaatiluuna fi sabiili اllah muslimiinta waajibka salaadleylka laga fudaydiyey waajibnimadeedii waxyaabaha ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala in alle ugu fudaydiyey waxaa ka mid ah waxaa idinka mida baa la yidhi dad xanuunsan waxaa kaloo idinka mida baa la yidhi dad ganacsato ah oo ilaahay fadligiisa raadcaynaya iyo وآakharuuna yuqaatiluuna fi sabiili اllah si awgeed bu imaamu طabri imaam اlqurطbi raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay ilaahay aayadda tan wuxuu ku simay darajaة اlmujaahidiin iyo almuktasibiin almaali اlxalaal kuwa shaqaysanaya si ay caruurtooda iyo naftooda iyo dadkooda u quudiyaan iyo kuwa mardaaga intaas baa meel qura lagu wada tilmaamay buu tilmaamaya axaadiista nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ka soo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka imaamu termedi iyo ibnu maaja warinayo inkastoo sanadkiisa culamada qaar ay ka hadhadlaan sheekh ilalbani raxmat ullaahi calayhina axaadiistu isbaraanbariye ee ka mid yahay oo kutubuhu lqadiimana wuu tadciifinayaa kutubtiisa dambena wuu tasxiixinayaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa altaajir alamiin alsaduuq almuslim maca annabiyiina waasidiqiina washuhadaai yowma alqiyaama qofka taajirka ah ganacsadaha ammaanada lee amiinka ah ammaanadu waa sifatu اlambiyaa inii lakum naasixun amiin ay wada tilmaamayaan waa dadka ugu mudan ummadda muslimka ah sifaadka lagu tilmaamo nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ganacsadaha amiinka ah ee ammaanada leh ee runsheega ah saduuqa ah ee muslimka ah buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam kaasi qiyaamaha wuxuu la soo baxayaa safka muqadamka ee horeeya dadka mu'miniinta hogaamiya oo waa nebiyada iyo sidiiqiinta riwaayadda qaarkoodna shuhadaa quray ku koobsanaysaa laakiin isku soo dar shahiidka iyo sidiiq iyo nebigu intuba waxa weeyaan waa hormuudka ummadda muslimka ah marka qiyaamaha waxa la raaciyey
inuu dadka hormuudkaa soo raaciyo macnaheedu waxa weeyaan hadduu ganacsigu miduu ilaahay kaga cabsaday yahay oo uu ku cibaadaysanayay uu yahay inuu ka mid yahay cibaadaadka meesha hore aakhiro lagu badbaado ee dadka hore ka mid ah ma badinayo markaa nusuusta ku soo aroortay ajarkeeda iyo ibaaxadeeda iyo wixii la halmaala laakiin waxaan rabaa inaan waxoogaa yar idinka tilmaamo casrigan aynu nool lahay iyo ganacsadaha dhibaatooyinka haysata casrigan aynu nool lahay waxay ku tilmaamaan waa casru technology casru maxay yidhahdaa information waa information society bay yidhahdaan waa bulshada warka ama macluumaadka badanaa la helay ee casrigan jira iyo xidhiidhkaa tirada badan leh furas wuuyey ay tahay qofka muslimkaa inuu ka faa'iidaysado oo waxaa la yidhahdaa casriga kan dee adigoo gurigaaga fadhiya ayaad macluumaadka ugu badan heli kartaa adoon gurigaaga dhanna uga bixin ayaad heli kartaa dunida alaabta taallo oo dhami waxay tahy qiimaha ay joogto meelaha ay taallo sida loo kala gato waxaad macluumaad u baahanta o dhan adigoo gurigaaga fadhiyaad heli kartaa in soomaaliduna dee waxyaabahay ku ammaanantahy waxaa ka mid ah waxay dhahdaan waa open society waa bulsho furan bulshada furani waa bulsho warkeedu uu si fudud isu gaadho maalan east africa iyo dhulkaasi gaalo ama niman reer yuruba iyo hindi ayaa baacmushtarka ahaan jiray qof waliba inta uu haysto ama itemka uu yaqaano wuu la aamusay dabeetana keligii ayaa ka baacmushtarayn jiray soomaalaa timi soomaalida waa open society waa dad furan way isu sheegtay dabiya daclo suuqa cid walba way ka saareen waxay kaga saareen quri maha activity kale waa informationka waa warka ay sasiinayeen warkaasi ay kala helayeen ay sasiinayeen ayaa ah wax weyn marka la joogo caalamka maanta la joogo marka maanta caalamkaynu joogno itisaalaadku way fudud yihiin ama internet gal ama telefoon dir ama kan dir ama waxaan sameeya inaad hesho macluumadaad u baahantahay oo dhan waad heli kartaa waxaa kaloo fudud qaabkaad lacagta u gudbin karto oo waagii hore dee awrkaasaa lacagta la saari jiray oo lasii safri jiray oo bila la sii socon jiray haddana waa swift waa mobilekaad sidato aad dhowr badhan taabato ayaa lacagtu dunida dabadeeda ku gaadhaysaa adna kugu soo gaadhaysaa idan itisaalaadkii oo dhami wuu fududaada taxwiilaadkii lacagta oo dhami wuu fududaada muwaasalaadkiina waa fududaadeen wixii wax la saari jiray dareen dayuurad markab wax walba waxbaa lasoo saaray iyana wuu fududyihi xaggaa marka laga eego tijaaradu casrigan way ka fududay cusurtii hore oo waa furas laakiin dhan kale marka laga eego qofka muslimkaa cidhiidhi badan bay ku tahy waayo nidaamka caalamiga ee dhaqaale wuxuu ku salaysan yahay nidaam aan islaami ahayn waxaa hormuud ka ah dad gaaleed waxaanay bays uga dhigeen oo uu ku salaysan yahay nidaam ribowiya sida daraaddeed waa nidaam dulmi iyo khiyaamo iyo guud ahaan markaynu duuduubno xalaal iyo xaaraan aan loo kala eegeynin marka taajirka ganacsadaha muslimkii wuxuu u baahan yahay kow inuu kala garto acyaanta maxaa xalaala maxaase xaaraana shareecada markaynu eegno xaaraantu waa wax yar 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 waxa kaloo dhami waa xalaal maalan waxa la cuno o dhan qur-aanku dhowr shay buu tilmaamay bes sunnaduna wax yaro kooban bay ku dartay marka sidaa loo eego xaaraantu waa farakuturis waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 wax loo odhan karo xalaashuna waa waxa soo hadha laakiin markay tijaarada gacanta ku qabteen cid aan muslim ahayni waxay noqotay xaaraantii yareyd ee farakutiriska ahayd in wax walba la saaro sidaa ogeed acyaantu waxa caynta uu qofka muslimka iibinayo waa inuu garanayo tusaalayaal baan idin sii kooban
maanta industriga ama warshadda waxaa loo yaqaano dadaan muslim ahayn baa gacanta ku haya. waagii horena reer galbeed oo qaarkoodna ahlu kitaab yihiin qaarna diinlaawayaal yihiin baa gacanta ku hayay. imikana asia kusoo biirtay oo ama malaaxido ah siday u badan yihiin chinesku ilaahba rumaysnayn, ama hinduus iyo beliya baas kale ah iyo buudhiis. idan diinlaawayaal kaloo ahlu kitaabku ka sokeeyaan oo kasii fog ahlu kitaabka. warshaddu markay shayga samaynayso laba shay baa asal oo ay ka fekertaa. shayga taklifadiisu inay jabnaato iyo availability